waan idin salaamay akhyaarta sharafta leh waa Bashiir Muuse iyo mar kale iyo casharadii runta u kaalay telefishinka runta u kaalay ka bixi jiray marka soo dhawaad ayaan leeyahay mar kale waxaynu bilaabi doonaa casharadeena ku saabsanaa ilaahay iyo caqiidada marka waxaynu maalmahan ku soo jiray casharka saddexaad oo runtii tira batay oo qaybo badan leh marka maanta waxaan bilaabaynaa qaybtiisii lixaad waa casharka saddexaad qaybtiisa lixaad ayaynu ku jiraa oo ah ilaahay sida uu islaamka sida quraanku uu ilaahay u soo gudbiyey caqiidada islaamka ay ku salaysan tahay marka horey baynu arrinta uga soo hadalay sifooyinka ilaahay sida islaamka u soo gudbiyey maanta taas ayaynu kusii socon doonaa qaybtan maanta aynu ka hadli doonaa waxa weeyaan qayb runtii waxoogaa sensitive ah waxa weeyaan bible-ka waxaynu kusoo maray siduu bible-ku ilaahay usoo gudbiyey ilaahay dadka cadow uma aha ama dadku cadowga ilaahay ma aha kuwa mu'miniinta iyo kuwa aan mu'miniinta ahayn labadaba marka dadka aan ilaahay rumaysnayn cadowga ilaahay ma aha bible-ka hadday noqoto tawreed iyo hadday noqoto injiil labadaba laakiin quraanku wuxuu soo gudbiyey ilaahay inuu mushrikiinta iyo dadka aan isaga rumaysnayn in ay yihiin cadowga ilaahay ilaahayna cadowgiisa ma jecla oo uu necab yahay ya man kaana caduwan lillaahi wa jibriila wa miikaala fa ina allaha caduwan lilkaafiriin ayay leedahay aayaddu ya ilaahay waa cadowga kaafiriinta marka ilaahay sida quraanku u soo gudbiyey dadka aan isaga rumaysnayn waa cadowgiisa marka aynu ku soconno aayadaha quraanka aynu ku soconno ya waa sawir runtii aad uga duwan sawirka bible-ku uu ilaahay ka soo gudbiyey ilaahay dadka aan rumaysnayn cadowgiisa maaha oo dadka aan ilaahay rumaysnayn cadowga ilaahay maaha laakiin ilaahay raalli kama aha gaalnimadooda iyo rumaysl la'aantooda oo wuxuu jecel yahay inay toobad keenaan laakiin islaamka sidaa maaha oo ilaahay waa cadowga kaafiriinta ayuu quraanku ina leeyahay ya marka balan ku soconno waxaanu akhriyaynaa aayada ku saabsan suuratul mumtaxina waxay leedahay sidan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda waqad kafaruu bima jaa'akum min alxaqi yukhrijuuna arasuula waiyaakum an tu'minuu billahi rabbakum إن كنتم قد خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعلهم منكم فقد ضل سواء السبيل marka aayadahaas waxay inoo sheegayaan inuu ilaahay kala saaray dadka oo dadka mu'miniinta ah ee ilaahay raacsan iyo nabigiisa nabi maxamed sida quraanku u soo gudbiyey uu ilaahay ka mamnuucay inay xiriir la yeeshaan dadka aan ilaahay iyo rasuulkiisa aan rumaynin ya yani wuxuu yiri ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum cadowgayga iyo cadowgiina ha ka yeelanina saaxiibo ya laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa cadowgayga iyo cadowgiina awliyaa waa asdiqaa waa asxaab waa saaxiibo iyo dad aad jeceshahay oo xiriir la leedahay marka yani sida aayada ku cad quraanku wuu kala saaray mu'miniinta waa dadkii ilaahay iyo rasuulkiisa dadka aan mu'miniinta ahayna waa gaalo waa cadowga ilaahay iyo cadowga mu'miniinta iyo cadowga rasuulka waa sida weeyaan marka waa la kala saaray haba yaraata wax xiriir oo yeelan kartaan ma jirtaa la yiri laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda ha ka yeelanina cadowgayga iyo cadowgiina awliyaa waa saaxiibo iyo kuwa idin dhow tulquuna ilayhim bilmawadda kuwaasoo jacaylka u tuurtaan yani waxa weeyaan aad jeclaataan weeyaan ya yukhrijuuna rasuula wa iyaakum an tu'minuu billahi wa rasuulihi marka sababtu waxa weeyaan rasuulkii iyo idinkaba guryihiina idinka soo saareen marka waxaad moodaa aayadan sida aayadaha ku cad in laga sheekeynayo markii nebiga ka laga soo saaray ay nebigu iyo asxaabtii soo hijroonayeen madiina yimaadeen
ayaa xidhiidhkii nebiga iyo muhaajiriinta iyo tolkood oo qureeshtii maka deganayd ah waa la kala jaray waxa weeyaan cadaawad ayuu ilaahay wuxuu waa cadowgiyayga iyo cadowgiina weeyaan sababtuna waxa weeyaan yukhrijuuna rasuula wa iyaakum iyaga oo rasuulkii iyo idinkaba guryihiina idinka soo saaray miyaad haddana xidhiidh la yeelanaysaan buu ilaahay ku yidhi saasuu marka uu ilaahay uga digay marka waxa weeyaan totally waa la mamnuucay tulquuna ilayhim bilmawadda sideed u jeclaanaysaan baa la yidhi idin iyagoo guryihiinni rasuulkii iyo idinkaba guryihii idinka soo saaray miyaad magaranaysaa xidhiidh la yeelanaysaan tulquuna sida xadhigga oo kale tulquuna ilayhim bilmawadda sida marka badda uu kusoo xidho baroosinka loo tuuraa soo ma aha xadhiggaad jacayl baad u tuuraysaan tulquuna ilayhim bilmawadda ayaa la yidhi marka aad buu qur-aanku arrintaa uga soo horjeedsaday aan ku soconno aayadaha تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم باي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد كفروا سببت أقومهم سوى حويان وقد كفروا بما جاءكم من الحق وحيكو قالوا بين ويديدين حقي يرنتي إذين تمد يا إسلامكي إذين يمد أي هرتك كوك عن سيرين kaas waa lambar 1 lambar 2 waxa weeyaan yukhrijuuna rasuula wa iyaakum rasuulkii iyo idinkaba way idin soo barakiciyeen iyaga oo cadaawad diineed ay ka muuqato ayay idin soo barakiciyeen marka labadaas sababoodba haba yaraat wax xidhiidha oo la yeelan kartaan dadkaas waxa hadda loo jeedaa faartii quraysh ahayd carabtii qurayshtii maka deganayd iyo kuwa la midka aba waxa weeyaan saasay noqonaysaa ومن حذا حذوهم يعدي إيجا كرة عضبة يعني وهم عد كسته أو إسلام كديدة أو نبي يا أصحاب تيسا يا مؤمنين تقبلوا أو جريه هذا كبرك عيسى عيدا وقبنا عيسى ما تعلان كرتان باليري مركو حويان مفاصلة المفاصلة بالإيمان ويان وإيمان كلوك لتجيهالك مركو حويان وحن وقصد عيدا عدوي مركو إلهي سيد إسلام كوسوق بيجي dadka aan isaga rumaysnayn waa cadowgiisa isaguna cadow buu yahay waka taas weeye marka cadow buu yahay iyaguna waa cadow ilaahay waan gart marka aayadahaas way sii socdaan oo waxay ka sii hadlayaan arrintaas ka sii hadlayaan waa marba inaan ku sii dheeraado lan tanfa'akum arhamukum wala awladukum yawm alqiyamah yafsilu baynakum wallahu bima ta'maluna basir قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وسورة ممتحنة آية مقرنا يسعب آياتها أقوه الرئيوية وحويا وحاد ku dayataan baa la yidhi oo sidaas oo kala yeelay ibraahim nebi ibraahim markii uu yidhi isaga iyo garanaysaa isaga iyo intii raacsan aan kugu celiya halkaas لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إبراهيم iyo intii raacday ayaa waxay dhaheen kuwii iimaanka diiday yaa waxay dhaheen shaqo isku malihin ya إنا براء منكم بدهن بريبان وإذن كنا شقة إذن كملين واحد عاود ثاني أسنامتين شقة إذن كملي بدهن أنكو عليها هالكا ومهم ما شأن السعوديين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده waxay dhaheen aayadu waxay leedahay ibraahim iyo intii raacday ayaa bari ka noqday intii ilaahay diiday waxay dhaheen qad bada albaqda cadaawad ayaa ina dhex martay idinka iyo asnaamtiina iyo waxaad caabudaysaan ba cadow baan u nahay bari baan ka nahay dhaheen wabada aan kugu celiyo halkaas wabada baynana wa baynakum albaqdaa abadan ara ayaa ina dhex taala abadan حتى تؤمنوا بالله وحده إلا إلهي كرم إنسان قالتهن وانو إذن عريسان هاي عدوي إلهي باتهن
واللقد آدو قلفسان وآدو أدق وي رنتي يا قفك عربي يقانو سنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وكا مركا حويان ومفاصلة دينية وإسلامك أي مهم أطهيتني ديمها قار كودنا ويكوشران دادك إن دين تلغو فقوقو oo diinta lagu fogeeyo oo diinta lagu karantiilo iyo iimaanka laakiin islaamku aad buu arinta ugu xoog badan yahay waxay quraanku waxa weyn waa suuratu madaniye weeyaan suuratu mumtahina waa quraankii madiina ku soo degay oo markii nabi maxamed maka laga eriyay isaga iyo asxaabta iyo muhaajiriinta markii maka laga eriyay oo hantidooda la wareegay ay madiina tageen quraankii soo degay quraankaasi marka aad waa quraan ma garanaysaa xaalad adag ku soo degay weeyay ma garanaysaa oo rag iska dhicin ah oo ma garanaysaa xilli dagaal baa bilaabmay markuu nabigu saamidina u yimid ciidan buu abaabulay oo waxaad garanaysaa inuu safarkii Abu Sufyaan ee Shaam ka yimid u dhexda u galay oo dagaalkii Badr uu halka ka bilaabmay marka waxa weeyaan aayaad xarbiya ayaa bilaabmay aayatul qitaal waxa loo yaqaano quraanka dagaalka loo adeegsado iyo jihaad ayaa bilaabmay in gaalada la iska dhiciyo marka luqadda aad ka dhanasanaysa waa halka weeyaan marka aqeedada iyo diinta ayaa lagu kala tagay taas ayaa la isku xiriiriyaa ama lagu kala tagaa sida aayadahan meesha aad ka arkaysaan oo Ibraahim iyo intii la socotay waxay tolkood ku dhaheen shaqo idinku malin qad kafarna bikum ya wa bima ta'buduna min dunillahi idinka iyo waxaad ilaahay ka sokaysa caabudasaan waa asnaamtii iyo waxaad ilaahay ka dhiganayeen saamba waan ku gaalownay wa bada baynana wa baynakum albaqdaa'u أبدا عرانا إن دحتالي عداوة حتى تؤمنوا بالله وحده إلا أهل التوحيد نقطان والتوبات كنتان والتصو إسلامتان مركب حويان هل كان أسعدوا هلكا مركب إسلام كو تاس وحويان آد أيوغو أدقيها تاس آد بوغو أدقيها وحويان واحد كده دانساني ساعيدها قرآن كا سيهين أنكو سعنو وانقرتو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولى منكم فأولئك هم الظالمون آية أن الله كو إله إي رسول كسر ومييو لا تتخذوا آباءكم آبياشين يا أصحابتين هكذا لغننا يا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء بالي آبياشين والد كحتا يا إخوانكم ولالهن لا تتخذوا أولياء بالي هكذا لغننا صاحبه يا الصاحبه إن استحبوا الكفر على الإيمان هذا قال لماذا كتشعل هذان إيمانك أو قال لماذا كل جنادان قوية يا هتشعل عننا إن استحبوا الكفر على الإيمان هذا قال لماذا كدور بدان إيمانك هذا قال لماذا كدور بدان إيمانك يا ساس أيها ليل مركب حضرك الساعات ومفاصلة ويان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ننكي سيدا يلا أو أمر كان شبيه أو أبيه أو قال يولالك أو قال حريرية أو كل جنادة وحويان والظالم والظلم فلق وي هي آيات الله ده مركب حويان وأرك الساعة وحويان واللقد آدو أدقوي مركب القرآن كحولي يمد مفاصلة الدينية نبي يا أصحاب نبي أنت الرعدة إن أي دتك إلهيهن أنت كهر تمدنا إن أيهن قال الله لا تقالم ولا إسكدعيو ولا قفقاد أما هدي والد كاين أما ولا لهين أما قويس كاجا حتى يهين إن الإيمان كدرتي عاد وجوينيسو وسدا إيمان كدرتي إن عاد وجوينيسو أي ده هاس عاد كهليسا وانقرت قل إن كان آباؤكم تنا بكسي درنبا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وسورة التوبة ما قرنيسا آية لبي اللباتن إلا سدحي اللباتن مركو حيلاد هاي يا قل إن كان آباؤكم وإخوانكم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وقويسكي دقاليه بال هدنا اللي سويمت waxaa la yidhi waxaad ku tirahaa nabiyow in kaana aabaa'ukum aabayaashin wa ikhwaanukum wa cashiiratukum ya waa aabaha iyo walaalada iyo tolka iyo ganacsigaaga iyo hantidaada iyo noloshaada haddaad ilaahay iyo rasuulkiisa aad ka jeclaataan fatarabbasuu waxbaa idinku soo socdee tallaabaa laydinka qaadayaa weeyaan fatarabbasuu eega waxa idinku dhaca weeye waxa tallaaba ilaahay tallaabadu idinka qaado bal eega ayaa la yidhi ha marka waxa weeyaan haddaad aabbaha iyo walaalka iyo qaraabadaada iyo ganacsigaaga iyo tolka iyo ganacsigaaga haddaad iimaanka iyo rasuulka ka jeclaato ilaahay tallaabu kaa qaadayaa weeyaan sidaa weeyaan aayaddu say leedahay qul in kaana aabaa'ukum ya قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وحبل لقمة تجين آبها يولالك يحاسك قاعد قبتي يقوي يطلق يهنتي دادي وحاسون بالي إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وكا يعني واحد لغور هي بمشرو قرابتي يقويسكي iyo hantidaadii iyo noloshaadii oo dhan haddii aad ilaahay iyo rasuulkiisa ka jeclaato fatarabas waxa uu ilaahay tallaabadu ilaahay kaa qaado bal eeg waxbaa kugu soo socde waa sidaa weyn aayaddu haddaad ilaahay iyo rasuulkiisa ka jeclaato iyo jihaadka wajihaadan fii sabiilihi iyo jihaadka haddaad ka jeclaato fatarabasuu waa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jihaadka haddaad ka jeclaato weeye marka qofka muslimka ah saddexdaasaa mudnaanta leh ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jihaadka ayaa mudnaanta leh saddexdaa haddaad marka intaad dib u dhigto aad aabbaha iyo walaalka iyo xaaskaaga iyo ganacsigaaga iyo fiilooyinkaaga iyo guryahaaga aad ku dheganaato tallaabo ilaahay kaa qaadayaa weeyaan fatarabasuu eega waxa idinku dhaca wallaahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin qolo faasiqiin ilaahay ma hanuuniyo waa suuratu توبة لبي اللباتن صدحي اللباتن وكا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وآيدي هدير عن 10 كوب عن كوب اللعبة بروجرام من كان عدوا لله مركا إلهي سيدا قرآنك إنه سوق بيه سيدا إسلامك سوق بيه عدو ليه له عدو يا kuwa aan isaga jeclayn iyo kuwa aan isaga rumaynin ba cadawgu u yahay nidaamisa cadawgu u yahay marka waxa weeyaan ma aha sidii aynu bible-ka ku soo maray ya bible-ka ilaahay jacayl dunida u qabay ayuu wiilkiisa kaliya asiiyay ayuu bible-ku leeyahay ya ilaahay jacayl dunida u qabay dunida waxa ku jira kuwa aan rumaysnayn iyo kuwa rumaysan intaba ya mu'miniin iyo gaala ku jirta haddaan saa kugu dhigo laakiin islaamku sidaa ma aha ilaahay sida islaamku u soo gudbiyey dadka aan isaga rumaysnayn cadawgiisa weeyaan isaguna cadawgu u yahay mana jecla tallaabo ayuuna ka qaadaya man kaana caduwan lilaahi wa malaa'ikatihi wa jibriila wa miikaala ninkii ilaahay cadawgiisa ah ee malaa'igta cadawgooda oo jibriil iyo miikaa'eel cadawgiisa ah fa ina allaha caduwun lilkaafiriin ilaahay waa cadawga gaalada weeyaan إلهي وعدوغا قال هذا فإن الله عدو للكافرين مركا آد باد وصور آد وكلفق إلهي بايبلك يا إله قرآنك آد باي وكلفقين رنتي يعني وانك وحوين 10 إنك تشري إله بايبلك يا إله قرآنكم ما اسكم يدبع إله كريستنك يا يهود أي عابدان أي آبها يا إله إسلامكم يا الله أما اسكم يدبع تاسويتان أنا اسكو بربر دغايو marka adiga arkaya labada sawir ba anigu si ammaan leh oo daacadnimo leh ayaan labadaba isugu soo ka barbar dhigaya doorashadan adiga leh ya
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ننكي نقضى عدو إلهي يا ملائكتيس يا رسوشيس يا جبريل يا ميكائيل إلهي وعدو كافرين وسورة البقرة آية 9 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم جزاء خزي ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مركا آيات أنه آيات حدود وحدود الحرابة أيها لها حدود الحرابة وحال لها برعدة برعد بديدة iyo burcada bariga labadaba way noqonaysaa sharcigaas laga qaaday kuwa intay wadada isbaara dhigtaan dadkana laaya hantidana dhaca dumarkana kufsada kuwa weeyaan waxa la dhahaa waa xuduudul xaraaba waa burcad badeed bay noqon kartaa burcad barina way noqon kartaa kuwa maxaa la markaa an yuqattalu waa in la dilo أو يصلبوا أما اسكتلاب لجو قطبه ونوع دلك نوع وحموي ونوع عيسى المسيح لودلي أن يقتلوا أو يصلبوا إن للدلو سيد للدونا بها لودلو أو يصلبوا أما وإن سيدا لودلو دبك بدن أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أما وإن قعنتاس هي لقتاس اللي جوية أما قعنتن هي لقتاس من خلاف لق يقعنس خلاف سن وإن اللي جوية أو ينفى من الأرض لك لقى مسافرية أنت هسه دم بوالي سقوط ريا ذلك لهم خزي يا تاسوا تلاوة كحبون بالي شرع قاسا يلا صاري مركوا حدود آد وقلف سن رمتي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هل كاسن كجبوا ذي رأي له محا عقابتا محكمتين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا برعد إلهي بي لدغالميان ورسول كيس لدغالميان ويسعون في الأرض فسادا قل كان فساد أي كبوحنيان فساد وامحي wax kasta oo dhibaato keena weeye nabadgelyo la'aan boob dhac kufsi wax kasta oo xad gudba ayay noqonaysaa wayas'auna fil ardi fasadan dhulka oo la fasaadi xataa waxa soo galay barak nabad guurka iyo dhulka oo la dhuxusha oo dhirta intii la gubo dhulka la nabad guuriyo generation ka soo socda ama jiilasha soo socda ay waxay ku noolaadaan ay u waayaan oo abaar ay sida maanta Soomaaliya ka dhacayso Soomaaliya maanta waxaad arkaysaa dhulkii kaymaha ayo dhan waa la gubay dhuxul baa laga dhigtay waxa loo dhoofinayaa dhulalka carabta loo dhoofinayaa maxaa dhacay marka abaar baayo waa maxay dhulkii baa waa la fasaadiyay barak waxa la dhulkii baa nabad guur baa lagu riday waxa weeyaan waxa isla shaqeeya daruuraha iyo dhirtu way isla shaqeeyaan daruuraha iyo dhirtu way isla shaqeeyaan meel kasta oo dhir leh roobkay soo jiidaa daruurahay soo jiidaa barwaaqada ku badan oo roobka ku badan laakiin martii dhirta la jaro maxaa dhacaya board baa dhacaya boardkaasi muxuu hawada ka saarayaa dabayshii daruuraha keenaysay ee roobka keenaysay ayuu boardkaasi hawada ka saarayaa saxaro noqonaya dhulka saxaraha roobku waxa weeyaan 50 mm ma gaadho sanadkii ma gaadho dhulka dhirta leh ee dhirta lahana 100 mm 200 mm ayuu roobku gaadhaa barwaaqo noqdaa oo 3 jeer buu roobku daa sanadkii ma garanaysaa iyo 2 jeer wax la mid marka dhulka oo la fasaadiyo oo nimanka hadda la yiraahdo sida loo galo waxa kamid kuwa dhuxusha shidanaya ee dhirta gubaya ee dhulka fasaadinaya yufsiduna fil ardi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ayat kale quraan dhulka fasaadinina markuu ilaahay hagaajiyay kadib marka dadka uga dhalaynaya ee dhirta shidanaya ee waxa weeyaan waa cadawga ilaahay iyo rasuulkiisa iyo cadawga muslimiinta weeyaan iyo cadawga nature-ka intaba kuwaas weeyaan marka waxa weeyaan ma aha bidcad wada intay meel isbaara ku xiratay baabuur dhacday oo dumar farax xumaysay ma aha waxa weeyaan yuharibuna Allah wa rasuluhu marka yuharibuna Allah wa rasuluhu waxa loo jeedaa diinta islaamka ka hor imanayaan weeyaan diinta islaamka ayay ka hor imanayaan marka waxa weeyaan dadka dulqaad lama siinin waxa weeyaan dad yawga kale iyo diimaha kale dulqaad baa ku jira waxa weeyaan yuharibuna Allah wa rasuluhu maanta waxa dhacaysa mari hadii sulta diiniya oo sulta sharciya la waayay in garanaysa ururo ay gacanta ku qabsadeen shariicada
oo iyagu ay dhahaan fatwoodaan oo ay dhahaan ninka Masar X hebel yuxaaribu Allah wa rasuulahu rasuulki ilaahay buu dagaalamaya oo madaxa ka gooyaan oo dhibaato u geystaan arintaasina waa sharci daro xuduuda sida tan oo kale xuduuda xadul xaraaba iyo xadul ridda iyo xuduudan oo dhan waa in sulta diiniya macruufa muctarafa ayaa oofin karta sultad iyo dawlad islaami ah oo dadku ay raali ka yihiin oo si sax ah ku timid ayaa oofin karta xuduuda shariicada islaamka marka loo noqdo ma wax koox ay gacan kaligood meel kaliya ku fulin karaan iyagu oo ay sarrabaan ka yeeli karaan ama qof walba uu soo rabo u fatwoon karo oo u macnaysan karo maaha waxay leedahay tawaabid sharciya jira oo loo maro oo adag sababta dhiiga dadku waa qaale marka waxa weeyaan man yuxaaribu Allah wa rasuulahu waa in la xadeeyo yaa rasuulka ilaahay la dagaalamaya yaa ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaya waa in la xadeeyaa yaa xadeynaya sulta diiniya iyo culimo aqoon diinta u leh oo adduunyada la nool dadaan nacayb ku jirin iyo cuqdad weeye oo dad yagu kala la noolaanayo maaha sidii markii Daesh Iraq iyo Suuriya ay qabsatay dadkii aan iyaga raacsanayn oo muslimiinta kaga bilaabeen iyagoo aayadaha raacaya marka waxa weeyaan yufsiduna fil ardi fasadan kuwaasi iyagoo xadki ilaahay baan oogeynaa ayay waxay carada ilaahay bay keenayaan oo nolosha dhan bay burburinayaan waxaan xusuustaa film baan daawaday markay Daesh qabsatay Iraq iyo Suuriya masaajid magaalada Suuriya ku taala masaajid ku yaala oo jamaaca lagu tukanayo ayay soo galeen markaas ay dhahan mishan Allah istafu mishan Allah istafu يعني waxaan war ilaahay baan idinku dhaarinay saf galay dhahan ma salaad tukada ma istafu macnaheedu waa maxay isku dhawaada weeyaan rasaasta tashiilanayaan markaasay dabada intay kala mareen bay sida baas u mariyeen waxa ku jira caruur yar yar odayaal waayeela ayaa ku jira way tukanayeen waa masaajidkii dhexdiisii maxay aayadani dalishanayaan waxay u haystaan muslimiinta sunniga ah ee magaalada deganeed ee Daesh taageeri weeday fikirkeedii xaraanta ahaa ee dilka ahaa in ay yihiin dad ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaya oo dhulka fasaadinaya oo dhiigooda ay banaysteen marka waxa weeyaan aayadahan dad badan ayaa fasaadiyay dad badan baa lagu laayay xadgudub aad u badan baa lagu sameeyay oo magaca ilaahay iyo magaca rasuulkiisa iyo magaca islaamka lagu sameeyay waxaasna waa in looga soo wada jeedsado oo waxa weeyaan sultad diini ah oo sharci ah oo dadku ogol yihiin oo wadamo badan ka talisa ayaa oogi karta culimadu waxay dhaheen dawladii khilaafada ayaa oogi karta iyo dawlad kasta oo muslimiintu ay doortaan oo wadan weyn ka talisa oo dadka dhiigiisa iyo naftooda iyo cirdigooda badbaadisa ma aha koox shufto oo intay wajiga mar ku soo duubtaan tuulo intay qabsadaan dadka sida u galeen wadanka Mozambique kooxda la baxday maxal ku dhahaa kooxda la baxday koox kale iyadana maxnad oo xaraana ayaa gobolka waqooyiga Mozambique dhulka batroolka laga helay iyaguna saas kale u jeedeen waxa ay ka tageen ma jiraan caruurtii iyo naagihii gabi way wada laayeen waa muslimiin baan nahay leeyihiin oo aayadahan ay dilishanayaan marka waxa weeyaan wax laga sheekeyn kara ma marka waa xuduud weeyaan xuduuduna tawaabid bay leedahay xuduudda islaamka meesha islaamka dacaayada looga sameeyay waa halkaa weeyaan oo balaayadu ka dhacday markii nin walba uu gacmaha la galay oo nin walba suu raba ka yeelay islaamku sidan ma ahayn oo sultu lahaa oo nanaam buu lahaa oo waa lagu badbaadi jiray oo shariicada waa lagu badbaadi jiray shariicadii maanta wax laga cararay noqotay waxaa soo baxay dad khariban oo si khaldan u maamulaya oon meel ka soconin oo iyagu afkooda ku macnaysanaya oo gacantooda ku oogaya ayaa timid markaasaa la yidhi war waa maxay war shariicada ka cararay baa dhacday dee markaa shariicadu saa ma ahayn waa lagu badbaadi jiray ما فهميسا marka saasay ahayd marka waa la fasaadiyay shariicadii waa la fasaadiyay magaca islaamkana waa la fasaadiyay iyaga oo ma garanaysa dadaan wax ma garata ah oo caamo ah oo ma garanaysa muqridiin ah oo fikrada diini ah oo kharaad oo xaraan ah wata ayaa soo baxay oo dadka saab galay aan ka socdo marka waa suuratu maa'ida aayada 230 ayaan ku akhriyay aayadaas aan hadda soo akhriyay
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين آيادنا وحي لهذا يا إلهي بأنه كشكيننا إله إسلامك إيا قرآنك أسوقت بيه جعيل كيسا وحو كحري إن رسولك الله أطيعه جعيلك إلهي إسلامك وحا لغو حري إن النبي محمد لا أطيعه kugu celiye qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii haddaad ilaahay jeceshihiin soo raaca weeyaan yuxbibkum allahu ilaahay baa idin jeclaane wayakfir dunuubakum wuu idin dembi dhaafi wallahu gafuur raxiim ilaahay waa dembi dhaafe ya marka haddaad ilaahay jeceshihiin soo raaca ayaa la yidhi shuruud weeyaan marka jacaylka ilaahay islaamka shuruud baa lagu xidhay itibaaca rasuul wa iimaana rasuul baa lagu xidhay waa sidaa ya qul atiicu llaha warasuula fain tawallow faina allaha laa yuxibu lkaafiriin ilaahay iyo rasuulkiisa ateeca hadday diidaanna ilaahay gaalada ma jeclaa la yidhi ilaahay mu'miniinta unbuu jecel yahay ilaaha islaamka uu soo gudbiyey muslimiinta iyo mu'miniinta keli ah iyo inta nebi maxamed rumaysa ee raacda ayuu jecel yahay saa daraaddeed jimcaha waa ka la habaaro kristanka iyo yuhuudda iyo dadka aan intaba ahaynan muslimka ahayn allaahuma ahlika alkafarata walmushrikiina acdaa'aka acdaa'a diin allaahuma ahlika alyahuuda wannasaara bay odhanayaan muslimiintu culimada jimcaha marka la tukado iyo xaramkaba waa laga habaaraa muslimiinta dadka aan ahayn baa dhan baa la habaarayaa oo waa mushrikiin waa gaalo waxa weeyaan waa kristan iyo yahuud weeyaan marka waa la habaarayaa ya maxaa loo habaara anigu arrintaa aad bay ii dhibtay runtii aad baan u dhibsaday runtii arrintaas maxaa loo habaarayaa maa loo duceeyo ilaahay ma jecla qof uusa ilaahay jeclayn miyaa loo ducaynayaa maya qof uusa ilaahay jeclayn duca ma mudna waa sidaa sheekhow marka waxa weeyaan waxaa ducada mudan oo keli ah qofka ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeya oo islaamka raaca jacaylka islaamka jacaylka ilaahay wuxuu ku xadaysan yahay islaamka dadka muslimka ah allahumma ansur alislaama walmuslimiin baa la odhanayaa ilaahu islaamka u gargaariya muslimiinta ilaahay oo dunida u gargaaro dadka dunida u naxariiso dadka dunida roobka u daasiyo dadka dunida colaadda ka qaad lama odhanayo muslimiinta keli ayaa loo ducaynayaa oo ilaahay khayr loo weydiinayaa kuwa kale khayr ma budna ilaahayna ma jecla in allaha laa yuxibu lkaafiriina kaafirku waa maxay waa qofka yidhaha I'm not Muslim I don't want to be a Muslim waa qofka islaamka diiday weeyaan wuxuu doonaba ha haystay ama buudi ha ahaado ama majuusi ha ahaado ama kristan ha ahaado ama yahuudi ha ahaado ama hinduusi ha ahaado man laa yaqbalu lislaama fa huwa kaafir waa sidaa islaamka fahamka islaamka wa in allaha laa yuxibu lkaafiriin ilaahayna gaalada ma jecla hadalkii oo kooban marka jacaylka islaamka iyo xidhiidhka islaamka waxaa lagu saasaa la yeelay waxaa weeye ilaahay xisbullahi wa xisbu shaytaan ya xisbiga ilaahay dadki ilaahay iyo dadki shayaadiinta weeyaan iyo dadka shaytaanka daarul islaam wa daarul kufri ama daarul xarbi yaa u bixiyeen marka haddii arrintu saa tahay muslimiintu say dunida ula noolaanayaan siday dad yowga kale ula noolaanayaan haddii qur-aankiiba uu sidan leeyahay oo ilaahay sida islaamka usoo gudbiyey uusan jeclaynba dadka kale muslimiinta mooyaane waa su-aal meesha taalla jacaylka ilaahay ee dunida dhan uu u qabay awey maxaa ilaahay meel ku qoqobay waa su-aasha la isweydiinayo maxaa ilaahay meel ku qoqobay jacaylka ilaahay maxaa daasad ku riday ya maxaa daasad ku riday qul atiicu llaha warasuul fain tawallow fain allaha laa yuxibu lkaafiriin marka dad badan oo adduunyada ku nool oo activitsa ah dadka adduunyada u dhaqdhaqaaqa ah iyo kuwa xuquuqda dadka u dhaqdhaqaaqa iyo kuwa dadka xuquuqda diimaha u dhaqdhaqaaqa ayaa waxay dhaheen islaamka lalama noolaan karo islaamka dulqaad ma laha dadkii wuu kala qaybiyey ilaahay muslimiinta ayaa iskale muslimiinta ayaa iskale muslimiintu u naxariistaa muslimiintu u dhow yahay muslimiintu jecel yahay ina allaha laa yuxibu lkaafiriin ilaahay gaalada ma jecla waka
marka waa arrin runtii aad iyo aad la yaab la weeyaan way ilaahan bible ku soo maray ilaah jacayl buu ahaa inna allaha maxabba ayay ahayd bible-ka saasa ku qoray injiilka ilaahay waa jacayl oo jacaylka ilaahay masiixiyiinta kaliya ama yuhuudda kaliya kuma koobna iyo inta bible-ka aaminsan inna allaha yuhibbu alcaalama kullahu wa yuhibbu an-naasa kulluhum dadko dhan buu ilaahay jecel yahay xataa dembiilayaasha uu jecel yahay ilaahay oo roobka u da'siya ciise masiix wuxuu yidhi axibbu acdaa'akum cadowgiina jeclaada wasalluu min ajli aladiina yusii'uunakum kuwa idin xumaynaya u naxariista ee guryaha idinka saaraya litakunuu abnaa'a abiikum fi samaawaat si aad u noqotaan aabihiina jannada ku jira oo kale maxaa yeelay fa innahu yudlic shamsahu lilashraari wasaalixiina wayumtiru litaaciciina waqayra taaciciina roobkana wuxuu u da'siiyaa kuwa xunxuniya kuwa fiican cadceedana labadaba wuu usoo bixiyaa macnaheeda maxay dadka labadaba wuu jecel yahay ilaahay islaamka saa maaha laakiin ilaahay dadka islaamka muslimka keliya wuu jecel yahay muslimka keliya ayuu jecel yahay sababtoo ah kaas in allaha laa yuhibbu alkaafiriin ilaahay gaalada ma jecla ilaahay gaalada ma jecla marka waad arkaysaa marka dhibka maanta muslimiinta ku haysta la noolaanshaha dadyawa kale ka haysta waa sidaa halkan ay salka ku leedahay waa mabaadi diini ah ayay salka ku haysaa aan ku socdo waa kaasaa وكاسا إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وسورة البروج ويان آية داسي waxay leedahay ilaahay qabashadiisa way adag tahay inna batsha rabbika la shadiid ilaahay qabashadiisa ama ciqaabtiisa way adag tahay innahu yubdi wa yuciid wuu abuuraa wuuna baabi'iyaa yubdi wa yuciid wuxuu abuuray buu dib u burburiyaa weeyaan wahuwa alghafuuru alwaduud waa ilaahay dembi dhaaf badan oo jacayl awey guduud waa xubbi weeyaan alwud ya وجعل بينكم المودة والرحمة صوماهين ومن آياته أن خلق لكم من أزواج أن خلقكم من أزواجكم آيات بآيات آياته سبحكم إنه إذن أبوري دمر وجعل بينكم المودة والرحمة تعال أيو نحريس بدن أحد منك إناكتيس مركا هالك النباساس كله وهو الغفور الودود وإله ودم بداف بدن وتعالى لكن تعال كاسي شروط بوليه يا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويان إن محمد الرمي الراعو أيا جعلك إلهي لغو حري وماها متسكفرن معها شروط أيا لغو حري ساد رادد أيا لو حبارة يا دتك عن مسلم كهين إنكستو أنو فكر كأنو أنو قاد وسهر كده دتك عن مسلم كهين إن لها بارو كنيسة ده دتك والو قد عيا لقى ما حبارو مساجد ده محا دتك لوغا حبارة وأرنت أنو أن سويدية كنيسة دتك مسلمين تاع لقى حبارة ولقي معرك يا أما سنغوغ أي يهود لين دتك لما حبارو دتك والو عيا لما حبارو دتك وناك بالو رجيا بلايا لو ما بريو marka xawayaan waa arin ku adkaanaysa quraanku sida uu inoo sheegayo qofka muslimku inuu dad yowga aan muslimka ahayn si fiican oo nabada ula noolaado way ku adkaanaysaa marka quraanka labada way ku taalaa aayada kale inoo iman doona oo aayada kale inoo imanayo odhanaya kuwii aan guryihiina idinka saarin oon dagaalka idinku oogin inaad u samafashaan لا نولاتان لا ينهاكم الله آيات وإنه إمن دونتا إلهي إذن كمان هي أن تبروهم وتقسطوا إليهم يا كوي أن قريهن إذن كسارن إذن لا تقال من إن أتصم فرشان ودو عدالة فرشان إلهي إذن كمان هي آيات مركا حوين آيات كلا إنه إمن دونا قرآنكم مركا قارنا دقال باك هموغدا وحوين رق اسكاد عياي وي وحوي يراته جح كما جرو qaar quraan macaan oo dadka la nool oo dadka soo dhaweynayna oo muslim kale war dadka soo dhaweeyna waad arkay labada waad ku arkay marka waxaween wal xaq yuqaal sama ahayn runta waa in la sheego yani hadaad hal dhinac qaadato oo hal dhinac u xagliso
ma cadaalad falaysid cadaaladdu waa waajib in cadaalad la falo siiba marka naska diiniga ah dadka loo soo gudbinayo in cuqdad iyo taxaamul uu kugu jiro ma aha aayad qur'aan waxay ahayd ya walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin cala alla tacdilu icdilu walow kaana daa qurba dad aad necibtihiin yayna idinku qasbin cala alla tacdilu inaad cadaalad fali weydaan ayaa muslimiinta lagu yidhi icdilu walow kaana daa qurba qaraababa ha noqday cadaalad faleeya sameeya yani waxa weeyaan nabi maxamed wuxuu yidhi waladii nafsu maxamedin biyadihi low ana faatima bintu maxamed saraqat laqatactuha yadaha hadday faatimo bintu maxamed ay waxado gacantan ka goynayaa buu marka cadaaladdu markaa ka hadlaya aayadda nabigu ka hadlayay marka in la cadaalad falo waa muhiim in dadka marka diin laga hadlayo si cadaalad leh oo sawir cadaalad ku salaysan loo soo gudbiyo waa muhiim marka quraanku hadda aayadaha aan soo akhriyay intooda badan waa aayada madani ah quraanka madiina ku soo degayna quraanku waxa weeyaan muslimiinta madiina marka dagaal baa lagu hayay oo dad yaw badan bay is hayeen marka quraan aayatul harbi baa la dhahaa aayatul qital aayatus sayf ayaa la dhahaa waa aayadihii dagaalka waa aayadihii sayfta waa aayadihii rag iska dhicinta ya marka waxa ku badan luqadan adag iyo dagaalka iyo iska celiyay iyo yaa ku adag yaa ku badan laakiin quraan badan oo maganaysa dadlano hadda quraanka makiga maka ku soo degay markii maxamed uu maka joogay nabi maxamed uu maka joogay oo muslimiintu ay minority ahaayeen aqeedada iyo nabadda iyo noloshu ka hadlayay gacanka hadal kuma jirin jihaad kuma jirin waxaan oo dhan kuma jirin marka waxaweyaan mar dambe ayay xaaladdu isbedeshay marka cashirku wuu inoo sii socon doonaa waa sidaas iyo ismaqal dambe iyo is arka dambe xiisa leh